ilaa 80 meeheradood ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gabi ahaanba magaalada Boorama musallafay kuwaas oo u kacay siyaabo kala duwan meheradahan ganacsi ayaa waxay ahaayeen kuwa 3 bilood ugu dambeeyay xaliga laga jaray iyo kuwa sanadkii ugu dambeeyay ganacsiyadan waxa abuurtay dhalinyaro kala duwan oo ka soo baxaya jaamacadaha ku yaala Boorama iyadoo oo la furayo adeegyo isku mid ah sida uu sheegay afayeenka rugta ganacsiga ee gobolka Awdal Xaaji Abubakar Xuseen Meecaad Shiina Dheere waxaad arki meel magaranaysa 100 talaabo isku jirta oo 100 ama 7 meherdood oo ama cafeteria ama cosmetic ama electronic ama maxayday food staff ay ka furayeen todobada ma socon karaan mid ama laba ka soconaysa shantii kale waa inay kacdaa si jiritaanka goobaha ganacsi waxay ku xiran tahay hadba fahanka suuqa iyo dhaqdhaqaaqiisa inuu qofku ogaado sida uu qabo aqoonyahan Maxamuud Warsame Roosh marka taasi waxa weeyaan xagga maamulka la xiriirayna iyo fahamka hantidiisa waxa uu macaasho iyo marka waxa uu khasaaro oo una hagaag u garanayn cashuuraha tirabeelka ah kirooyinka qaaliga ah iyo kororka qiimaha korontada ayaa iyaguna waxay qayb ka noqdeen musallafitaanka ganacsiyada yar yar ee muddooyinkii ugu dambeeyay laga furayay Boorama waxaad arkaysaa nin shalay furay 2 bilood ka 3 bilood ka bacdina meesha la xaraashay maxaa waa kiradii maxamili waay inankii shaqaalii maxamili waay elektrigii maxamili waay biyihii maxamili waay cashuurtii dawladda xamili waay waxa kale kharashka ku jira cashuuraha ku jira marka kharashaadka marka la isku daro waxa laga yaabaa meheradii ayna awoodin inay kharashaadka tirada badan la sheegay inaanay qaadi kareen inkastoo ay Somaliland sheegtay in ganacsiga ay horumar ka samaysay balse waxa xaqiiqadu ay tahay in nolosha dhaqan-dhaqaale ee Somaliland guud ahaanteed marka la eegayo ay ka hooseyso heerka saboolnimada ee qaaradda Afrika taas oo wasaaradda ganacsiga Somaliland ay ku fashalan xakamaynta sicir bararka iyo kala xadeynta ganacsiyada isku midka ah wasaaradda ganacsigu ay roolkeeda ganacsi dawladda roolkeeda ganacsi ay qaato oo hadii ma garanaysa content dukaano electronic uu furan yahay dadka koob iyo konton laga joojiyo oo la yiraahdo war koob iyo konton ma qaadaysa degmadii ama magaalada ma qaadaysa adigu waxa furtaa banaan xoolanahin eegada taageeris iyo dhiirigelin kama maarmi karaan in nidaamka dawladeed ee ka jira Somaliland uu taageero ganacsiyada yaryar lagana yareeyo cashuuraha tirabeelka ee sababay in iridaha loo xidho meheradahaasi yaryar waxa sidaasi ku taliyay aqoonyahan Maxamuud Warsame Roosh waxa weeye meheradaha dawladda kale inay koriso oo meheradaha yara koraya maadaama ay shaqada abuurayaan meheradani in inta ay korayaan ee ay lugooga ku joogsanayaan oo kale in laga yareeyo cashuuraadka laga yareeyo Axmed Diriic Iltre warbaahinta SBC Boorama